آه، فيديوغا سغالات wuxuu daba joogaa kii hore mawduuca ama wuxuu ku saabsan yahay waa isla kii sideedaad kaliya waxaa bedelan waxa laysiiyey macluumada laysiiyaa ka bedelan kaliya su-aasha laysu weydiiyey wuxuu leeyahay iyadoo laysiiyey cosine inay lamid tahay 6 loo qaybiyo 10 waxaad heshaa inta nisabka مثلثاتك كهرتي شاك أو سد حقلك حقشة قمن شاك هذا استعمالها شكل لجوسية شكل من وكانها مركا وحقوقه الرجال استعمالها حواي تلابة كوبات أنا هرت بحليسية أن صاقره وحن لا مركا هره halkan xal qorayaa xal solution kifan waxadiisii waxaa kan labaadan ka dhigaa sababtoo hadhowta nisabka markaan tirina si uu igu sahnaado tartiibkan u baran wuxuu ahaa kow sign u ahaa kan labaada laysiiyey macnaha markaysaa kii labaadaa laysiiyey waxaan leeyahay markaa cosine maxay lamid tahay laysiiyey 6 loo qaybiyey 10 laysiiyey this given oo macluumada laysiiyey maxaa laga rabaa marka 5 hartay nisabki oo مثلثاتك ama saddex geesoodyada ahaa 5 hartay nisab 5 ka hartay sheeg laga rabaa marka maxaa laysiiyaa marka cosine waxay lamid tahay hore soo qaatay waxay lamid tahay dariska oo loo qaybiyo dhinaca dariska la ah angalka ama xagasha dhinaca dariska la ah oo loo qaybiyey dhinaca ka soo horjeedo xagasha quman watanaha waa c marka c uu la mid yahay markaysa waxaan leeyahay marka given waxaa laysiiyey b oo loo qaybiyey c markaysa maxaan leeyahay marka b maxay la mid tahay waxay la mid tahay 6 maxay la mid tahay we don't know ma naqaan c maxay la mid tahay 10 markaysa marka wixii laysiiyey ayaan ku beleysgareeyey si iigu sahlanaato inaan 5 dhiman aan qoro laakiin su-aasha waxaa waaye kayfa sidee ku helayaa waxaad ku helaysaa macluumaad saabiqa inay u noqoto oo ah Pythagorean theorem aad horu soo qaateen inaad ku noqoto waxay dhehaysaa marka Pythagorean idan xasuusina sida oo xagasha quman sayidka dhinaca ka soo horjeeda ah oo laba jubaaray waxay la mid tahay labada dhinaco saddex geeska oo laba jubaaro la isku daray ay la mid tahay oo la isku daray marka laba jubaaran lagu daray ba laba jubaaran ay noqonaysaa marka waxaa haystaan ku dabaqa si waa haystaa waa 10 waana laba jubaaran tahay waxay la mid tahay ma haysto markaysaa sideeda u haysanaya lagu daray ba'na maxaa haystaa 6 waana laba jubaara kan haddaan laba jubaaro waa 10 boqol 10 lagu dhufto 10 aasaaskaas u dhufana waa taqaanaa exponential kusoo qaateen laba aada oo isku weerka ah sideeda u haysanaa lagu daray kan haddaan 6 laba kale isku dhufto waa 36 markaysaa labada dhinacan opposite-ka 36 ku darayaa intana 36 ku darayaa markaysaa inta waxaa soo baxa kan wuu baxayaa dhinaca waxaa kasoo horaayo isku weera 10 haddaan 6 ka jaro waa 4 inta 9 taal
هلا كان تقاضي طبعا هلا قاعد أنت بتجي طبعا ونقضي أفرق جرتي سجال سد حدا جرة ولح مركز لحدا أفروا ما هو مركا اسكوار كان قاعد لبدا دينع كان وحو كيميدey sideed lagu dhuftay kana a lagu dhuftay laba isla baxayaan a waxay soo baxaysaa iyadoo kaligeeda sideed soo baxaysaa marka a adi oo aan garaweysnayn khadkan ka duwaya waxaan leeyahay waxay la mid tahay waa soo saaray a waxay la mid tahay sideed marka khadkan dambaan ku shaqeynaa marka si aan gifankii iyo wixii aan soo helay saan u dabooqo marka waxaan leeyahay kan koobaad oo mataqaanaa nisbooyinka wuxuu ahaa sin angalka laysiiya waa eedaas ay xukumi meeshaan dil raba biya lagu sii karaa biya laga dhigi karaa ama a laga dhigi karaa ama saya laga dhigi kartaa ama bayda laga dhigi wixii la rabaa laga dhiga marka midka laga dhigo aduu ku soco markaa waxaa lagu weydiiya isticmaalaysaa marka sin xukunkeeda waxay ahaaday qaanuunkeeda wuxuu ahaa muqaabilka angalka dhinaca kasoo horjeeda oo loo qaybiyey xagasha toosan dhinaca kasoo horjeeda marka xagasha waxaa kasoo horjeeda adaana kasoo horjeeda waxaan qoraa marka a loo qaybiyey c ama ca marka a maxay la mid tahay waa ku bedelaysaa a waxay la mid tahay ta hadda soo saaraynay waa sideed markaysaa sideed waa caana maxay la mid tahay waa 10 waa qoraysaa si aa dhow tahay qaladka uga fogaato sidaa isticmaal macluumaadka isticmaalita kan waa ii qoran yahay tu inaan qoro muhiim ma aha waxaan haddaan rabo rewrite kan waa rewrite garayna sababta hadhow wuxuu ii sahlayaa mataqaanaa inaan khadkana waa ka duwaa si oo igu sahlanaado inuu gifan yahay san u ogaado marjeeda waxaan leeyahay labo waa midkii gifankii waa waxaan leeyahay cosine a waxaa waaye maxay la mid tahay b oo ah dariska oo loo qaybiyey xagasha qumankan kasoo horjeedo oo siida ah waxay la mid noqotay marka biidu waxay la mid tahay 6 xagasha quman dhinaca kasoo horjeedana 10 uu la mid yahay khadkayga u noqonayo kan waa gifankii haddana waxaan leeyahay 3 waxaan leeyahay maxaa waaye tangent waa inaan xifdisana tangent a waxay la mid tahay iyadana midka kasoo horjeeda angalka eeda kan kasoo horjeeda oo ada ah oo loo qaybiyey midka dariska la ah macluumaadkaas waa inaad xifdisanta mana waxaa waaye a loo qaybiyey ba marka a maxay la mid tahay waxay la mid tahay dhigaa waa 8 ba iyo ba'dana maxay la mid tahay 6 ay la mid tahay 6 ay la mid tahay markaasa inta kuwa hara way sahlan yihiin waa ku hor qora marka waxaan leeyahay kan afaraad kan cagsigiisa waa ma jirta kan cagsigiisa magaciisa ma aha cosecant maras cagsiga kan waa marka uu sahlan yahay waa c oo loo qaybiyey a markaysa maxay ahayd marka c maxay la mid tahay 10 adana maxay la mid tahay 8 hadda waxaa tirahdana 5 wuxuu cagsiga kan waa cosineka cagsigiisa waa cosineka markaa cagsisa asigana maxaa waaye magaciisana waxaa leedaha secant alda secant ayadana waxaa leedahay kanaad cagsina philip garay waxaa leedahay c loo qaybiyey c maxay la mid tahay 10 ay la mid tahay ana maxay la mid tahay c qalda b waaye kan ma aha b inta b waxaa leedahay bda hoos keenaysaa
siidana koraa geenaysaa marka siida maxay la mid tahay sidaa kor geysay bida maxay la mid tahay lixda hoosa keenaysaa markaysaa midka lixaad waxaa waaye cotangent hallo cotangent cotangent ayadana tanay cagsigeeda tahay oo maxaa waaye b loo qaybiyey jida eeda bida maxay la eg tahay lix jida eedan waxay lamid tahay 8 markaysa marka waad daba garaynaysaa sin maxaan dhahnay a of a c waa 8 c-dana waa 10 cosine b of a c b dariska ah iyo c waxaa waaye 6 over 10 tangent waxaan dhahnay a of a b marka 8 of a 6 cosecant aydan waxaan dhahnay waxaa waaye cagsiga oo sinka waaye marjeeda kana laga bilaaba c of a marjeeda 10 of 8 waa kana secant aydan waxaan dhahnay cagsiga oo waxaa waaye cosineka waxaa waaye c of a b 10 of a 6 waa cotangent aydan waxaa waaye cagsiga tangent waxaa waaye b of a b waxaa waaye 6 aadana waa 8 aan waa dhamayna marka way dham marka mar kastood wax lagu siiyo waa inaad nisabkan aad xifdisan tahay waxa lagu siiyo mid si la doono lagu siin karaa functionkii la doono lixdoodan waa lix function mid ka mid ah lagu siinayaa inta ka soo hartay raadiya lagu dhahayaa waa inaad marka fahamsan tahay marka way dham